wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta abaar 2:00 duhurnimo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. wafdigan madaxweynaha oo ay kamid yihiin marwada koowaad ee dalka, gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland, wasiirada wasaaradaha madaxtooyada, arrimaha gudaha, waxbarashada, warfaafinta, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, saraakiil sarsare oo ka socotay aqalka madaxtooyada Soomaaliland, waxaana ay mas'uuliyiinta gobolka Saraar kan degmada Caynaba salaadiin cuqaal kumanaan kamid ah dadweynaha gobolka Saraar aan kaga hortageen magaalada Guumeys oo ka tirsan gobolka Sool. waxaana loo soo galbiyay wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba, iyadoo tuulo kasta oo soo maro madaxweynaha iyo wafdigii sani inuu ku qaabilayeen gacmo furan iyo caleemo qoyan, iyagoona ku dhawaaqayay halkudhigii ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha. intaasi kadib waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisa loo soo gudbiyay fagaarihii loogu talagalay inay wafdiga madaxweynuhu uga khudbadeeyo dadweynaha oo xarinta khayriyada ee gobolka Saraar. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaas khudbad dheer ka soo jeediyay ayaa ku amaanay shacabka gobolka Saraar sida fiican ay ugu soo dhaweeyeen inuu gaaray jidda hore ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sool. inaanu baahida dalka iyo gobolada loo baahan yahay si kasta u jecelahay inaanu wada kafaalo qaado waanu samaynayn nooma suurtagelin, laakiin waxaad ku talagelaysaan inay naga tahay go'aan ay naga tahay inaanu meel walba gobolada dalka oo dhan wixii ka suurtooba annaga iyo shacbiga iyo gacanta isqabsanayna ilaahayna la kaashana. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa isna mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shacabka reer Caynaba oo ku aadan reer Caynaba ku soo dhaweeyeen wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. barasaabka gobolka Saraar oo isna halkaasi madaxweynaha ka hor ka hadlay ayaa ugu horeynba ka dhawaajiyeen gobolkan yahay mid ku talaabsaday horumar ballaaran, isla markaana dad deegaankan yahay mid isku tiirsan. waxaana uu barasaabkani ku amaanay booqashada uu madaxweynuhu ka yimi xarunta gobolka Saraar ee Caynaba. suldaanka guud ee Suldaan Cabdillaahi Cali Muuse iyo Suldaan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac oo iyaguna munaasabadan ay hadal ka soo jeediyay ayaa ku amaanay wafdigan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland booqashada ay ku yimaadeen xarunta gobolka Saraar ee Caynaba. sidoo kalena waxa ku amaaneen xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waqtigii koobnaad ee xilka talada dalkan haystay waxqabadyadii ay ka hirgelisay Soomaaliland. ugu dambeyntii waa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo booqasho ku yimaado magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa iyaguna isla galkii dambe ee maantaba ka ambabaxay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyagoo u sii jeeda magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. Cabdi Sakhfar Cabdilaahi, telefishinka caalamiga ee Soomaalisat, magaalada Caynaba.